أنزل علينا الغيث أنزل علينا الغيث أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا غيثا هنيئا مريئا غدقا تبقى مجللا صحا عاما دائما نافعا غير ضار عاجلا غير آجل. اللهم تحيا به البلاد وتسقي به العباد وتجعله بلاغا للحاضر والبادي. اللهم اسقي عبادك اللهم اسقي عبادك وبهائمك واحيي بلدك الميت. اللهم سقيا رحمة اللهم سقيا رحمة اللهم سقيا رحمة اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا بلاء لا سقيا عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غرق. اللهم إن بالعباد والبلاد من اللأواء والجهد والضنك ما لا نشكوه إلا إليك. اللهم أنبت لنا الزرع وأدر لنا الضرع وأنزل علينا من بركاتك. اللهم ارفع عنا الجهد والجوع والعرى واكشف عنا منا البلاء ما لا يكشفه غيرك. اللهم إنا نستغفرك اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفار فأرسل السماء علينا مدرارا فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم إنا خلق من خلقك 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 فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك. اللهم أنزل علينا الغيث اللهم انزل علينا الغيث واجعل ما أنزلته قوة لنا على طاعتك وبلاغا إلى حين. اللهم أسقنا الغيث اللهم أسقنا الغيث وآمنا من الخوف ولا تجعلنا آيسين ولا تهلكنا بالسنين واغفر لنا جميعا واكشف ما بالمسلمين من بلايا يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا وسلموا على الرحمة المهداة محمد بن عبد الله فقد أمركم الله تعالى بذلك فقال جل شأنه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم عليه وزد وبارك عليه وعلى عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله اقتدوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فقد كان يقلب رداءه حين يستسقي وتفاؤلا بقلب حال شدة الرقاء والقحط حال شدة إلى الرقاء والقحط إلى الغيث. وادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الله لمن حمده. اللهم اسقنا الغيث اللهم اسقنا الغيث اللهم اسقنا غيثا سريعا. صلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله. waxaan arkayna waa natiijana maxay ka dhalataa sababtoon isbedelin natiijada isbedeli mayso waa inaan xagga ilaahay u cararno markastoo ay dhibi timaado. maxaa la yidhi fafiruu ila allah. sidaas annagana ayaan farannahay ummadda Soomaaliyeed oo dhan meel kastoo ay joogtaba ay faran tahay. xaaladda lagu jirana xaalad marna la sahalsan karo ma aha, waliba gaar ahaan dadka magaalooyinka jooga waxaa laga yaabaa inaysan aad u dareemaynin. maxaa yeelay biyaha waa noo durdur tubada intaan ka furanayna waaye ayagoo qabow iyo iyagoo normalaba waa helaynaa. cuntada raashinka weli nagama gu'in, hilibkii iyo caanihii weli waa noo imaanayaan soo maaha. laakiin dad hantiilayaal ahaa xoolo fara badan haystay hilib iyo caano xilli walba cuni karay ayaa maanta ubadkoodii ka dhaqaaqaya oo aan haysanin awood ay ku duugtaan keliya. hooyo naxariisteeda aad garanaysaan ayaa waxay ku leedahay 6 carruur oo aan dhalay iyagoo qaarna dhinteen qaarna ka sii baxayso ayaan ka dhaqaaqay. maxaa yeelay waxay u heli kartana ma leh, waxba uma qaban karto. laa xawla laha walaa quwa. marka xaaladdaasaan ku jirnaa.
waxaan isleeyahay laba arrimood oo ugu waaweyn waxa aan faranahay arrinta koowaad waxaa waaye sidaan aan nahay tadarucan iyo khushuucan naga muuqda inuu joogto noqdo inta ilaahay subxaanahu wa tacaala faraj khayr qaba uu ka keenaya ama gurigaaga joog ama fasalkaaga joog ama masjidka joog ama suuqa joog meesha aad joogto maxaa la rabaa tadarucaas iyo ilaahay subxaanahu wa tacaala istigfaartaas aanu istigfaarsanayna inay ahaato joogto inta ilaahay subxaanahu wa tacaala uu faraj khayr qaba ka keenayo iyo kadibba واستغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا marka natiijada lagu xiray wasiilada lagu xiray in roob la helo maxaa waaye al-istighfar waa inay joogto noo ahaato oo meel kastoo aan joogno aan joogteen arrinta labaad qof alaala qofkii anaga naga mida dabcan jaamacadda muqdisho waxay samaysay akaano dabcan uga qayb qaadanayso gurmadka abaarahaas oo ay sii gaarsiinayso iyadana dadkii gaarsiin lahaa waxaan rabnaa marka wax allaala wixii aan awoodi karno ha yaraada ha badnaado haddaad shalay 5 tuurtay oo maanta 2 dheeri aad haysato ku rid haddaad waxaa waaye 10 hore u samaysay wixii kusoo ha yaraysan waa fahanay soo maaha waxaa laga yaabaa 10kaagaas meel inay ka dhiman tahay yaa qofaa laga yaabaa inay badbaadinayso $2 aad tuurayso $3 aad tuurayso waxaa laga yaabaa qof inay badbaadinayso ha yaraysanin aan bixinno iyadana intaas ayaan jecelahay inaan kusoo gabagabay aad iyo aad u mahadsantihiin annagoo joogtayna tadaruca iyo istigfaarta iyo wax allaale wixii aan awoodno aan ku bixinno qof cidna deeqi kartaana ma jirto maanta daruur yaroo hoorta ayaa ummadaasoo dhan deeqi karta laakiin mashriq iyo maqrib haddaan isaga nimaadno oo xoolo waxaan heli karno aan isku dardarno waxaan u tari karno weyn ma jiro dadkaas maqayladoodaana soo gaari jirta nama soo gaari jirin mid kasta beertiisu wax ku ridan jiray kii xoolana xoolihiisu dareersan jiray maanta maxay tahay qaylada waxaan soo gaarsiinaya daruurtii baa aysan helin ilaahay subxaanahu wa tacaala baa ku filan ilaahay waxaan ka baryaynaa ummadaas inuu roob ay ku diirsadaan inuu soo dejiyo ilaahay subxaanahu wa tacaala roobaa u soo dejiyo ilaahu roobna sii ilaahu abaarta naga saar ilaahu intii muslima buu culays ka qaad ilaahay anaga noo dembi dhaaf ilaahu noo dembi dhaaf ilaahu noo dembi dhaaf hada wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullahi taala wabarakatu